Asalaamu calaykum dhalinyaro soo dhawaada waa macalin Maxamuud casharkan waxaynu ku arkaynaa tobankaas erey meesha noo saaran ereyga koowaad graft laba micno uu leeyahay micnaha koowaad waa dadaal qofkii inuu dadaalo for example hard graft helped him success dadaalkiisa guusha u keenay graft waxaa kaloo la yiraahdaa in tusaale dhaqaatiirtu waxay sameeyaan waxa la yiraahdo transplant ama grafting tusaale qof baa meeshan wuxuu ka gubanayaa gacanta maqaarka dhamaalaha ka qaadmaya marka waxay sameynayaan bowdadiisa ama calooshiisa waxa laga soo qaadaa maqaar yar deedna meesha maqaarka ka lumay ama ka halaaway baa la saaraya adigu waa qayb maqaarkaada inta laga soo qaado in meel kale oo jirkaaga la saarta ayaa la yiraahdaa transplant grafting waa la yiraahdaa ereyga labaad gruesome waa wax waali ah dhibaatayna wax laga cabsado horrifying yes hadaan ku dhaho the movie showed gruesome images filimku wuxuu tusinayaa yani disgusting horrifying images sawiro naxdin iyo murug iyo wax laga baqale yes ereyga saddexaad hideous waa wax aad u foolxun ama aad loo dhibsado yes aad u foolxun waa dhigi kartaa for example she wore a hideous mask foolxun bay wadatay waa dhigi kartaa hideous waa wax aad loo dhibsado the smell was hideous urtaas ama shirkaas wuxuu ahaa mid aan dhibsado yes ereyga afraad liberate waa free qof maxbuus ahaa inay xornimadiisa dib loo siiyo yes for example the soldiers liberated the town yani ciidankii waxay dib u siiyeen xornimadii magaaladaas adigu liberate waa free qofkiina xornimo asiis liberty waa freedom xornimo erey shanaad maim waa qof dhaawac in loo geysto weliba dhaawac aad u xun heer uu qaybo jirkiisa uu ku waayi karo taa ayaa la yiraahdaa maim for examples the explosion maimed several workers yani qaraxi shaqaale fara badan buu maxay ahayd dhaawac jirkooda u geysta heer xubnaha jirkooda ay ku waayeen ereyga lixaad medic waa qof caafimaad ka shaqeeya healthcare worker camal yes somebody who works in the medical field yes ereyga toddobaad merger waa inaa laba company la join karayo hal laga dhigo yes for example the merger created a larger company adigu laba company oo kala ahaa buu isku daray hal company buu ka dhigay yes ereyga sideedaad mutilate waa in qayb kamid ah qofka jirkiisa dhaawac xun loo geysto yes the machine mutilated his hand goyn xitaa waa dhigi kartaa mashiinkii gacanta ayuu ka gooyay ama gacantiisoo dhaawac xun buu u geysta taas iyadana mutilate ayaa la yiraahdaa inta badan waxaad arki doontaa female genital mutilation oo ah gudniinka fircooniga waxaa dhaawac loo geysanaya xubinka taranka ee gabadha yes erey sagaalaad pacifist waa qof ka shaqeeyo nabadda qof diidan dagaalka colaadda wuxuu u ololeeyaa nabad iyo wada noolaansho qofka dagaal iyo mar walba dagaal ooga ahna waxaynu leenahay warmonger yes warmonger marka waa qof dagaal ooga ah pacifist waa qof mar walba nabadda iyo wada noolaanshaha ka shaqeeya yes ereyga tobnaad ee ugu dambeeyo withstand waxaa waayo qofka inuu diido to resist yes inuu diido for example this wall can withstand strong winds derbigan yani wuxuu resist gareyn karaa dabeelaha xoog badan ee soo maraa yes withstand qaabkaas ayaa loo isticmaalaa cashka intaas ayuu ka yahay keep learning and have a good day